السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنان محمد عبد الله حنان هذن كسر دوادة صمتي عارتي في تلفزيون كعسب الصومالي لقى فري مقالة أنكرة ما أنت وحى استوديو هنوصل بقضي الأميرة الصومالية أبن كسر دويننا تي في كعسب أكو دونا هاي حنقبل بالعوا يا ولالك يوسف أي ولا شيء سمايا سو دوادة مركو هرسة ودوا ولا شيء تي في كان هروا وأركي ما شاء الله sidee u aragtaa in TV cusub laga hirgeliyo magaalada Ankara oo aan ognahay in bulshadeena Soomaalida ah ay midooyinka u dambeeyay aad ugu soo badanayeen horta ma sha Allah in TV cusub meeshaan laga sameeyo ama xitaa hal hore u jiray laantiisa laga sameeyo horta ku wacneed ma sha Allah horta waxaan fikradan horta qofka keeno qof ma sha Allah u fikira waay haddii maanta la dhaho kaliya Soomaali wax walba oo Soomaali laga helo gudaheeda in Turkina loo sameeyo way fiicantaa si ay u arkaan wax qabadka ama qaabka wax u socdo dadka Turkiga jooga si dadka Soomaali ay u arkaan Soomahan waxa dhici karto kale in qof oo ardaykiisa oo wili toolo qurbaha ama banaanada uunan ahdin maamo ama aabe ay u soo dirsadaan inay wax uga bartaan dalka Turkiga marka haday wax xoga ayna ka taasna maxal da qof maanta oo xil Soomaali ka haya ama qof wax ka bartay dadka dhan ma wada gaarsiin karo qof kaliya gaarsiin karo waxa waay social media ama TV-ga meeshaas ka jiro kale markuu daawado ay maamada aragta qaabka isbitaalada u socdaan ama dad afkooda hooyo ku hadlaayo oo wax soo gudbinayo oo leh qaabkaana wax u jiraan isbitaalada waa sidaan waa noocan dadka sidaan ay u nool yihiin ama kale dhalinyaradan oo kale maanta meesha lagu soo casuumo aniga walaashay Soomaaliya kale ama kuwa dib loo keeni doono hadallada ay ka dhacaan Soomaaliya kale haday dhahdo 1 year aan jooga intaas aan faa'iido wax caqabada ma arkin kaligayga nool Turkida waa dibna soo dhaweey qurux badan ma sha Allah TV-ga hadalkaas oo kale ka sii deeyso ama aniga sii deeyo maamooyinka Soomaaliga intaas haday daawadaan way ku filantaa ama aabooyinka Soomaaliya jooga xitaa ma lees oran karaa TV-ga kaliya ma ahan ma ku hadlayo luqadeena hooyo oo kaliya xitaa wuxuu leeyahay qayb af Turki ah isdhaxgalka bulshada xitaa qayb uu ka qaadan karaa dadka aan noolahay xitaa ma lees oran karaa boqolkiiba cost TV-ga wuxuu yahay somti RTV micnaheedu waxa waay TV-ga Soomaali iyo Turki labadaba waa u dhaxeeya that means iyada laftigeeda waxay naga caawin kartaa inuu TV-ga Turki Soomaali isla aado in Soomaali Turkida ay isdhex galaan hadda siyaasad kaliya isku dhex jirnaa macal ganacsiina isu dhex galno bulsha ahaanba Sumay walaal adigana aad baan ku soo dhaweyneynaa waxaan u maleynayaa walaal Yuusufna isku fikrad baatiin aad baan idinkaga gudoonay soo dhaweyntiina iyo waliba inaad nagu soo booqateen stuudiyaha ka waran nolosha Turkiga Yuusuf walaalo ma arday miyaa tahay ma deegaan baa tahay horta ani marka inta imaanay waxaan u imid deegaan u jooga Turkiga insha Allah luqadda Turkiga ina barto aniga laftiga wax faa'iido ay ugu jirto luqadda Turkigana waa barana hadii la yiraahdo inkastoo aan English wax ku soo bartay iyadana jaamacada Englishkana zaid inta qaali u yihiin waxa isku day inaan luqadda Turkiga barto at least aan xitaa master ku diyaariyo dhawaanaya tiima u maleynayaa wali luqadii iyo wixii lama qabsan si fiican u lama qabsan adii wax yareer aqaan hadda maanta waxa ay nin baska kaligiis raaci karo oo suuqa ka soo adeegin karo oo kan taksiga la heshiin karo ma sha Allah taksi la gorto horta Turkiga ugu badani hadda maanta taksiga waa raaci karaa maxaa la dhahay suuqa waa ka soo adeegin karaa timjaraha tinta soo ugu jara oo u tilmaami karaa adigu waxa aaminsanahay in suuqa kaligiis aad ka soo laaban karo luqadda waxaad ka baratay inaad isku maareyso laakiin lagama yaabo inaad wax yar xitaa ku barto kuma baran karo صح maxaa u leedahay macnaha kuma baran karo macnaha suuqa iyo ka horeeyay ardadii idinka horeeyay mesela dad badan baa wadankan wax badan ku sugan baa jiro oo aniga ba aan kamid ahay waxa lagu baran karaa 6 bilood yani wax saa u weyn ma ahan waxaan rajeynayaa insha Allah 6 bilood kadib adiga oo laakiin mid ku sheega 6 bil ka badan anaa bad jooga 1 year jooga luqadda Turkiga horta anigu 3 wadan soo maray ka hor Turkiga intaan imaan Malaysia soo maray Cambodia soo maray Laos soo maray Asia haddii aan u fiiriyo luqadda Turkiga wadamadaas waxaa wadankaas Malaysia marka ka imaanay kan ugu badan wax soo bartay Malaysia inkastoo English looga hadlo laakiin dhalinyarada isdhexgalka banooniga markaan dheeli jira xarfo yaryar waa ka bartay Malaysia haddaan u fiiriyo Turkiga maanta aan u fiiriyo ku kala dalxiisana u tagay laakiin Malaysia Turkiga maanta haddaan u fiiriyo 80% waxaa fudud Turkiga luqadooda laakiin maadaama haddii qof oo maanta ku dhaw luqadda Turkiga 6 bilood lagu bari karaa naftiisa kala hadlo 1 year ana joogo ilaa way kala duwan yihiin
laakiin waxaa aaminsanahay qofka 1 year hadduu u galo maxaa la dhahay baadi ama yuurto meesha u taqaaniinba haddii aa u gasho 6 bil waa lagu bari karaa qof oo madax fudud qofka madax adagna 1 year ka badan inay ku qaadanaysa lama aha insha Allah wax walba waa dadaal ismooy ka war walaal nolosha Turkiga ma la qabsatay insa ayaad joogtaa wallahi aba ani waxa jooga wax adi mudooyin adi hada iska kooban oo laakiin waqti badan ah laakiin maxaa la nolosheedu way fiican tahay 99% aniga wax dhibaato ah lumaana kulmin adi nolol iska fiican aan dhihi karaa intii aad ku nooleed wax ka yaabi ma aragtay ka war cuntooyinkooda ma la qabsatay cimiladeena waan ognahay Soomaaliya ka timsan ma ha cimilada Soomaaliya waan ognahay kuleelka wadankeena iyo halkan waliba xilliga qabowaha hadda lagu jiraa abaayo horta maadadkood cuntadeeda waxa adi sa ula qabsatay waxa sheega ayaga markay Soomaaliya tagayaan waa inay ayaga la qabsan karaan ani waxa is dhigi kara cuntada waa iska roonta waxna waa la qabsan kartaa waxna waa la qabsan weynaysa marka ugu horeyso laakiin ani waxa is leeyahay waa la qabsaday ma sha Allah adiga dhanka cuntada ka warayso ani horta marka ku kirsatid maya loo karinayo cunada horta Sooma hadii loo fiiriyo cunada Turkiga tan guriga lagu kariyo tan maqaaxiyaha lagu iibiyo waxa fiican tan guriga lagu kariyo miskagda Turkida cunadooda ayaga aan horta protein way leedahay laakiin qaraar waay Malaysia jooga Malaysia cunada Soomaaliya waxaan ku arkay sheexa Turkida sidee u cabtiin aad u qaraar yahay waliba anigu xitaa dad baaba sokor ku jiraan oo bilaa sokor taacada marka aad ka waran qaraar mid kula yeeshay shaaxoodana sidee waa qaraar oo leeyahay waliba shaaxa Turkida bakeeri yar waay Turkida isticmaalo waqti bakeerigaas 6 xabo sokor ku daraani 6 qaando oo sokor ah ku dara waliba caleentooda qaabkii u dhadhamayay si kale waa in kasto ama hadda waa la qabsaday hadda kaliya labada cunno aan ka jeclaa Turkiga waxay tahay ikmaaga rootiga oo hilib ku dhex jiro kaas waa la qabsaday iyo ayraanta labadaas protein aan u cuni jiray macnaha waxa is dhigi jiray qabooba joogta marka saan u cunaa waa la qabsaday laakiin cunadooda kale ma yaqaan qaraarta Malaysia jooga Malaysia cunada zaid u macdaan hadda dadka Soomaalida way jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo ku dhahay anaga wadanka cuntooyinkiisa lama qabsan waxa jiraba Soomaalidii waxay noo fureen ganacsato badan oo waxa jira Soomaaliyeed maqaaxiyo cuntooyinkeeni kariya ayaaba ka furan wadanka waana mid kaliya Soomaalidu dhaqdhaqaaqeedu meel walba tagaan waa laga dareemaa so bulshada wadankan dhaqankoodu waa sidee dhaqan ahaan maxaa is leedahay way nooga duwan yihiin ama wax ku soo jiita ma jiraan Turki ahaan aniga dhaqankooda wax maanta way nooga duwan yihiin oo macnaha dhiban u arka aan dhahayo ma jiraan dhaqan ahaan hadii loo fiiriyo diin ahaan kaliya wax yar ku kala duwanahay horta ma sha Allah ay diintooda jecel yihiin laakiin sida islaamka amal taas ina ka hadlana qalad waaye islaamkooda ayaga qoseeya wax way gama gelintaa laakiin Soomaaliya Turkida waa wadanka kaliya oo aniga aan aaminsanahay wanaaga qofnimo loo sameeyo qofka Soomaaliga Turkiga ku nool dawladda Soomaaliya joogta xitaa ma u sameeyso dawladda Turkiga sida ay noo ixtiraamaan ay noo sharfaan markii kale ay u dooratidoo kale dalku joog oo kale si fudud waa lagu sharfaa si qurux badan lagu siinaa waliba kan muwaadinka kale ee Soomaaliya kula jooga ku adeegay immigrationka Soomaaliya marka tagtay inuu saas ku xushmeeynay lama aan Soomaaliya marka la isba bardhigo qof dhalinyaro Soomaaliyeed ee wadankii wax ku soo bartay in muddo ay halkaan imaaday iyo nolosha wad aragteen dadkan Turkida marka la isba bardhigo dhalinyaradeenna hab dhaqankeena iyo hiigsiga ay hiigsanayaan adigu qof arday baa taa u maleynaya iyo ayaga sida u fikirayaan hiigsigooda maxaa farqiga u dhaxeeya baad is oran kartaa والله waxa is dhihi kara waxa farqiyo u dhaxay anaga maanta waxa rabnaa in wadankeen bir dhisano maalin kasta waxaan lahaa dhalinyarada biriyatiin ee dhalinyarada maanta ma tihiin anaga waxa waa hamigeeni in ka gungaarno dhalinyarada biri inaan is ogna moogtahay in ka gungaarno biri sa anaga wadankeen wax uu qaban laheen han ayaga wadankooda maanta uu dhisan yahay wax walba ayaga qabsani karo laakiin anaga waxa rabnaa wadanka burbursan biri in anaga dhisno hawl badan baan sugaysaa dabcan hawl badan baan sugaysaa
isdhexgalka bulshada markii la eego dhalinyarada qayb intee leeg bay ka qaadan kartaa inaan wadanka intaan imaano wax ku barano dad badan waxaa jira arday Soomaaliyeed oo sidiina oo kale ah waqti badan geliyay inay wax ku bartaan wadankii ku laabtay ma la is oran karaa labada bulsho waa mustaqbalka dhow waxa ka dhalanayo haddaba waan aragnaa inuu xiriir fiican ka dhaxeeyo aad buu usoo siyaadi doonaa xiriirka ka dhaxeeyo oo door muhiim ah bay ka qaadan doonaan dhalinyaradan wadankan wax ku baranayso boqolkiiba 99 door muhiim ah ka qaadan doonaan sababtoo ah dadka hadii isfahmayaan waxa waaye in oo xiriir fiican uu ka dhaxeeyo wanaag baa mar walba la wada dhihi karaa taas mar walbana xiriirka anaga iyo ayaga naga dhaxeeyo waxa waa in ay isfahmi karno hadii dadka isfahmi karaan adduunka maanta waxa adiga uu ku hagaagi laayaad sida wadankeeno kale isfahan la'aan wax la dhaha ka jirto anaga hadii ay isfahmeen waxa aaminsanahay in ay xiriirka hadda naga dhaxeeyo mid ka sii weyn aan sameeysan karno insha Allah marka laga hadlayo isfahanka bulshada iyo isdhexgalka waxaan u maleynayaa Yusuf uu diyaarsan yahay wuxuu leeyahay anigu Turkiyaanka inta ma fahmay baa mar dhow gabar ka qaadan rabaa aan gabar Soomaali aan u joogo gabar u jeedo gabar kale aad ma hadii la calaf ka dhigan taas lama diidi karo laakiin Soomaalida isdhexgalkeeda iyo Turkiga iyo Soomaali isdhexgalkooda hadii awa ka hadla dhaho adi xanaan aan wadanka waa iga soo reeyso waliba waa iga aqoon badan tahay qof intaas sano joogata laakiin qof walba oo maanta su'aal weydiiyay qalbigiisa waxa ku jiro ka hadla mugta asiga ama oo arkay ani aan sida ka arkay Turkida in badan horta maskiga waa la isku ganaaxa markan oo inta corona jiro saddex mar la qabtaa anoo bilaa maske ama mar oo ifra inta isara ama ba wadanbo dadkana Turkiga hadii la sii qabana hore laga ganaaxa qofka Turkiga ani ma la ganaaxin wali wadi inta ka timid Soomaaliya ka imid dhaay oo uu qeeqeeli wuxuu arday mitido qaf arday tahay ilaali maxal dhahay xoga badan raadiyo dhaay si ay u la socotid wadanka dambana asagoo ku furaa Soomaaliya soo marka weyn wanaajiyeen qofka Turkiga hore laga qabanayo wala ganaaxa ani waxay ku yihiin soo dhaweynta musaafir kan taksiila aan raaco maanta ma arko baska xumaata kama arko dadka ila raacayana mar waa arka kuwa adiyara hadalla xun kugu dhahay dadkan isku wada mid maaha hadii taksiila ku wanaajiyo oo asgariga ku wanaajiyo oo dawladda ku wanaajisay shacabka waxa ka soo gaaray inuu wuxuu arkin taas aday waajib ku saaran waa tootadaad inaad macnaha wax wanaajiso hadda kale waxa dhacday maanta markaas soo socday meel afdii oo adii aan ku sugaay maxaa la dhahay bas soo markii meesha fadhiya asgariga soo mar cuneynay kuwa carabna geeskeena wax cuno ku cunay soo marka ayaga laga soo bilaabo ani marka ayaga arka afka wax xirtay gabdha carabta markii lagu yimid waxa la dhacnad maxay intuu cunaysiin intee ka timideen Allah waxay dhahan Soomaaliya ka nimid afka xiro dhaay uu ka soo dhaqaaqay annagu saan noo fiir afka uu xirawnay mood waxaan aaminsanahay gabdhahaas haday wadanka ay ka yimideen saxda sheega laayeen u ganaaxi la asgarigaas يعني waxay muujinaysaa ixtiraam wanaagana loo haayo iyadoo taasina jirto dadka Soomaalida qudheena waxaan nahnay dad ixtiraam leh oo dhaqan u leh dhaqan sharaf loo adduunka laga yaqaan leh marka taaqudweeda ma isdhihi karnaa annaga kasbanayna la ixtiraamo ama aan meeshan tagnaba ka dhex muuqano okay ana ku sheega horta Soomaalida dad aad u ixtiraam badan oo macnaha hataa dhanka ajaanibta dilna zaid u soo xushmeeyana laakiin wadan kan lamida jiray oo Malaysia la dhaasigan zaid noo soo dhaweey aniga kaas joogi jiray waxa dhacday xitaa Malaysia wadankan wuxuu noo sameeyay on arrival visa ku qaadanay marka galeys Malaysia wadankaas zaid oo noo ixtiraam jiray wayna sharfi jireen waxa dhacday in dhalinyaro badan ay ku dhedheelaan wadankaas macniyo kale dhanka iqaamooyinka hadda inta qaab problema ka yimaado sida ayaa hor Allah u naxariistay yarkii dhimanay markoo qabooba yar galay marka waxa dhacday in yarkii yar la socday kan iqaamo moona wadan qaboob galay macnaha fiisa sida loo yaqaan ama iqaam moona wadan qabooba galay isbitaalka geeyeen asigoo ku badbaaday isla iqaamadaada u dhig ugu dhimana moona islaam ku badbaaday iqaamadii qabteen way register gareen ku isbitaalka marka ku register gareen yarka uu dhintay iqaamada ninkii noolay uu watay for example kale gabadhaana iqaamadeeda ani ii dhigtay anigii markii operation ka aan gal waa ku dhintay markii kan uu dhintay la dhawaa kii dhintana waa nooliyay Turkidu way ku wareereen soo marka Soomaalida waxay yaqaaneen dhaqan waxyaalo oo boqol wadanka qalad ah ay ku dhaqaaqaan Malaysia kale waxyaalo qalad balwadooyin aan macquul ahayn oo madaxaga aanan galeyn ay ku isticmaaleen dhalintii soo maalin walba la qabto qof macnaha wadamadan kale badana daroogada isticmaal moogtahay qofka ajaanibta la qabto durba carab ha noqdo dad kale Afrikaan kale ha noqdo la qabto waxa la qabooro yar Soomaali balwada la isticmaalaa ama yar Soomaali oo qaad qarinay
ama yar Soomaali xashiish qaranaa ama yar Soomaaliya wax walba waxay noqotay wax balwada qaranaa marka dambe heer waxay gaartay qofka Soomaaliga oo ka daran yahay Bangladeshki Carabta oo ka daran yahay ay gaartay wadankaas waxaan aajirna dadka loogu jecel yahay number 1 ka aajirnay haddana waxaan nahay on arrival wali oo nool yahay dhan dawladeed waa laakiin qof aan shakhsiyan markuu booliska wadankaas ka hor yimaad maanta waa ina carartid si walba uu qabana adoo xitaa ahaa qof magac weyn kulli bulshada dhexdeeda oo maleeshiyanta ay yaqaanaan kii la qabtaata oo la weydiiyo fiisihiisa waxyaalo badan lagu koontarool hadda maanta Turki waxay noo maraysaa heer haddii qofka Carabka geeska laga qabto ama Afrikaanka kale oo iqaamo ama sharci la weydiiyo adiga Soomaaliya dadka aan lagu weydiinay lagu fiirinayn xitaa marka waxa dheelaa Soomaalida meesha ay tagtay ayaga ku kaadiyaan haddaan lagu kaadin wadanka waa noo sii socona aaminsanaani wanaagiis insha Allah waxaan rajeynaynaa in Malaysia iyo Turki iyo meelo kaleba aan ka maarno oo insha Allah wadankeeni anagu aan dhisano oo ku noqono waana rajooyinka waaweyn aan qabno arday ahaan markii la dhaho ardayda Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan Ankara tusaale ahaan xiriirka ka dhaxeeyo iyo ma jiraan dhaqdhaqaaqyo ee ardaydu ama academic ahaan ama waxyaabo ay dhexdooda ah firfircooni ay sameeyaan oo dhanka waxbarashada horta ani ahaan sidaan u imid wadankan weli meel waxbarasho lugteeda maana saari maana tegin hawlo kale ay istaadan corona time aa loogu jiray so ani wax waxbarasho ku saabsan abayan siinaya wallahi ani waa horta waxbarasho waa galay hadda luqada bartaa waxa isleeyahay dhaqdhaqaaqoodu fiican iyo isfahanka adduunka horta wax ugu wanaagsan waxa waa in ani aad isfahmi karno haddii ay dadka isfahmayaan oo aad ham iyo tiigsi ay leeyihiin waxa waa dad iska macquul samahan marka ugu dambeyn maxaad noo soo jeedinaysiin maanta waa imaateen waqtigiina muhiimka noo quurteen Samti RTV waxaa tiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo dhaweeyay oo in telefishinkan cusub la aasaaso dadka noogu hambaliyay waliba noo imaaday ayaa tihiin maantana barnaamijkan nagala soo qayb qaatay maxaa isleedihiin maxaad naga filaysiin maxaad noo soo jeedinaysiin iyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadankan ku dhaqanba horta daa ani ku hormaro misine haddii ani aan ku hormaro horta TV-gan hore waa u sheegay waa TV loo baahnaa positionkiisa ilaa qeyra ka siin leh wasiir Cabdullah Quraan Jecel oo TV-gan qofka aasay maanta oo macnaha qarash iyo juhdi labadaba oo ka galay haddana asigoo qarash iyo juhdi galiyo oo weli qarash kale sii gelin karo inuu macnaha dad horeyaal wariye u ahaayeen ama dad horeyaal waxaan maskax weyn ku leh asigoo keeni karo haddana wuxuu ku fikiray inuu dhalinyaro maasha Allah inuu TV-gu maadaama uu soo baxay inuu maanta oo u doorto macnaha oo taalantade hadda soo baxayaan inuu u doortay oo fikirkaas quruxda badan oo inta ku fikiray haddana ka mira dhaliyay waxa waaye maanta inta lagu soo koobi karin in laga hadlo ilaahay khayr ka siiyaan leenahay inkastoo aniba aan kamid ahay dadka TV-ga u shaqeeyo waxaan leeyahay wax wanaagsan waa insha Allah meesha TV ka damaynta taagan yahay oo Turkisaad ku eg yahay meel ka sareysa inaan geenana waa rajeena oo Soomaaliya dhan walbo oo ka gaaro si la isu sii dhex galo wax badan loo kala faa'iido inkastoo Turki faa'iidadeeda hadda way socotaa laakiin isma lihi macnaha qaab shirkad ahaan oo qofka Soomaaliga maanta ku imaanaya oo macnaha asiga wax xoog ka meeysto moogtahay shirkadan oo go Turkiga kale u taga ama sidii jirta oo markii hore lagu imaan jiray xillibaana la wadan jiray Soomaaliya visa lagu soo qaadan jiray Turkiga hadda waxay gaartay in shirkad go Turkiga la dhahayo ay dadka keentay marowsa maanta oo xildhibaan waxa saadan u baahan waxaan sii rajeynaa qofka Turkiga inuu Soomaaliya joogo intuu application-kiisa kacsado waxbarasho uu soo aado Turkiga application-kiisa ka daawado xogtana oo TV-ga ka daawado qaabka lagu heli karo waxbarashada insha Allah inkastoo adi xitaa maasha Allah dad badan oo Turki maanta wax ka barto aqoon-yahanana waa la keenay la soo fadhiisana dadkaas qaabka wax ku bartay ama qaabka kula soo xiriireen markay wax baranaa ama qofka wax baranaa Soomaaliya joogo kula soo xiriiri karo hadii gudbiyaan qofka Soomaaliya jooga maanta iyadoo cidna u maray Soomaaliya waa naqaan marka muqalas sunna way sadacna iyadoo la dhicin oo xogta ogyahay jaamacadda qarashka ku baxay qarashka fiisiisa ku baxay wax dhan oo ogyahay intuu laptopkiisa dul fadhiisto waxbarashadiisa soo xareysto
inay gaartaa rajeynaya insha allah waa sababta iyo waxa ugu weyn oo TV-ga maanta loo asaasay inaan dadka Soomaaliyeed meel walba macluumaad gaarsiino. Sumaya ayaan siinayaa. wallahi wixii adii lahaa aboowa dhahay ani waxa leeyahay maanta asoo bilaaw imaada rajeynaya maanta asoo horumar ka weyn asoo sameeyay ina imaada rajeynaya aad weyn marka waxa leeyahay horumar wacan insha Allah waxa rajeyneynaa wax walba oo ma aragtay macluumaad oo Turkiga ka saabsan ama wadan kale ha ahaato ina asaga kala xiriiri doono dad badan oo hadda boosu ka dhawaajiyeen waxyaabo badan hadda aan waxba ka ogeyn inay wax badan ka ogaani doonaan insha Allah khayr iyo barwaaqo ayaan rajeyneynaa dhamaanteenba wali waxaan ku jirnaa barnaamijkeeni marti kale ayaa na sugayso oo aan rabnaa in barnaamijka nagala qayb qaataan aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga aad noo horteen aad baad u mahadsantihiin